kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee warkeena maanta aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono madaxweyne Farmaajo oo bahdil lala yaabay u geystay Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ciyaartoydii ku soo guuleysatay koobka bariga iyo bartamaha Afrika uu casuumaad naadir ah ugu sameeyay dalka Turkiga iyadoona ciyaartoyda dhalinyarada ay farxad darteed ay la ilmeeyeen kadib markii ay ka war heleen inuu casuumay madaxweyne Farmaajo barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan ciidamada beesha Abgaal oo maalmihii dambe waday ugu sawir waxay bilaabeen hadda inay isaga baxaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kadib markii ay isku khilaafeen habka iyo tabta loo wajahayo dagaalka gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha Puntland Siciid Danina wuxuu weerar dhinac afka uu ku qaaday siyaasiyiin dhawaan xukuumaddiisa ku eedeeyay in dana gaar ah ay ka leedahay arrimaha doorashooyinka qof iyo cod ah Mareykankana xayiraad dhinaca dhaqaalaha ayuu ku soo rogay shabakad iyo sidoo kale amiiro sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab waa kuwa saraakiisha ay dawladda Mareykanka ay xayiraada ay ku soo rogtay saameyn ceenkee ah ayay ku yeelan doontaa Al-Shabaab oo wajahaya dhibaatadii ugu darneed barnaamijkeena ayaan ku faaqidi doonaa qodobada iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso badan ayaan maanta barnaamijkeena Somali Press TV saaxiibayaal aan ku faahfaahin doonaa haddii ay tahay markii kugu horeysay waxaan ka codsanaynaa in marka hore aad rukumato channelkeena si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada xasaasiga ee maalin waliba aan halkan soo dhigno waa hagaag aan ku bilaabo maanta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmihii la soo dhaafay geed fadhi lagu gorofeeyo siyaasadda Soomaaliya ka dhigtay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara ayaa halkaasi ka bilaabay bahdil ay la yaabeen shacabka Soomaaliyeed uu u geysanayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ciyaartoyda 17 sano jirada Soomaaliya ay ku soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika uu casuumaad naadir ah ugu sameeyay dalka Turkiga Farmaajo ayaa sheegay inuu bixinayo dhammaan qarashaadka ku baxaya safarka ciyaartoyda casuumaad iyo dhiirigelin aad u sareyso ayuu ugu sameynayaa dalka Turkiga Farmaajo ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay in ciyaartoyda waalmarintii ay u qalmeen uuna siin in midkiiba $100 la siiyo oo ah ciyaartoydii ku soo guuleysatay koobka bariga iyo bartamaha Afrika waxay ceeb ku tahay sharafta madaxda talada haysa sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taas anigoo ka duulay ayaa go'aansaday in casuumaad dalka Turkiga aan ugu sameeyo dhalinyarada si aan kaga dhaqo dhibaatada loogu geesto sharafta dawladda Soomaaliya ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in baasaboorro diblomaasi ah uu sameynayo dhammaan ciyaartoyda ayna mudnaayeen intaani ka badan in loo sameeyo wuxuuna wax lala yaabo ku tilmaamay in Villa Soomaaliya lagu casuumay ciyaartoyda iyadoona ballanqaadyo uuna u sameyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhankooda ciyaartoyda dhalinyarada ah ee ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika ayaa markii ay maqleen in casuumaad uu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilinta ayay cishan waayeen waxayna sheegeen in ay ku farxeen warka ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciyaartoydan ayaa isku diyaarinaya in dhawaan ay ka ambabaxaan Muqdisho maadaama diyaarad gaar ah uu soo diray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay kaga qaado Muqdisho una geesa Ankara iyagoona halkaa kula kulmi doona madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo casuumaad dhif iyo naadir ah u soo diray dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ee mudnaa in lagu sharfo inta uu ku sharfay madaxweyne Farmaajo dhinaca kale haddii aan eegno ciidamada beesha Abgaal ayaa bilaabay inay isaga baxaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kadib markii ay isku khilaafeen habka loo wajahayo dagaalka Shabeellaha Dhexe xilli beeshani ciidamadii ugu badnaa ay isku geysay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana waayihii dambe waday ugu sawir iyo sidoo kale dagaalada waan bilaabi doonaa ayaa hadda waxaa la soo warinayaa in saraakiisha ugu sareysa ciidamada dawladda ee gobolka Shabeellaha Dhexe jooga gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha Abgaal inay isku maandhaafeen habka loo dagaalgelinayo ciidamada beesha ayaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay qaarkood iyadoona saraakiisha amarta inay ka warheen
in muqdisho ay isaga laabteen maadaama dagaallo ay qaadi waayeen oo ay gobolka shabeellaha dhexe ay ka sameyn waayeen dagaalada ka socda gobolka hiiraan oo kale. fashilka ku yimid qorshihii gobolka shabeellaha dhexe ay saraakiisha beesha abgaal ka wadeen ayaa waxa uu yimid kadib markii taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raagi la sheegay in ciidamada beesha abgaal ee ku sugan cadalle uu diiday inay qayb ka noqdaan ciidanka miina baarista oo kal hore ay ka dalbadeen saraakiisha hogaaminayso taliyaha ciidanka inuu ku daro ciidamada miina baarista si deegaanada al-shabaab ay ka saaraan miina baaris ay ugu sameeyaan. odowaa ayaa la sheegay in arrintan uu ku aargudanayo kadib markii saraakiisha beesha abgaal ayaga oona kala tashan dagaalada ay ka bilaabayaan gobolka shabeellaha dhexe ay muqdisho ka bilaabeen in ciidamada beeshooda ay aruursadaan kulamo gaargaarana muqdisho ay ku yeeshaan oona taliyaha ka qaybgelin. sidaasi darteedna uu ka carooday taliyaha ciidanka xoogga dalka uuna ka reebtay ciidamada kale ee beelaha kale ka soo jeeda islamarkaana yaqaana miina baarista. weji kale ayuu yeelanayaa in beesha abgaal oo maalmihii lasoo dhaafay taaka aan u jirsan dagaalka al-shabaab in xilligan dhexdooda ay isku khilaafaan habka iyo tabta loo wajahayo dagaalada gobolka shabeellaha dhexe ciidankooda oo ay ka warheen in muqdisho ay isaga soo laabtaan. dadka ayaa taasi waxay ku tilmaamayaan in beeshu ay dhaafi weyso in cududa ciidan iyo sidoo kale hubka ay haysato ay soo bandhigto iyo sidoo kale in shidaal la gubo oo muqdisho iyo cadalle ay baabuurta iska sii socoto. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa markii u horeysay weerar afka ah wuxuu ku qaaday siyaasiyiinta ka soo horjeeda ee xukuumaddiisa ku duraya eeda ah in dana gaar ah ay ka leedahay arrimaha doorashooyinka qofka iyo codka ah ee deegaanadaasi ka socda. Siciid Dani ayaa khudbad dheer u jeedinayay taageerayaashiisa ku sugan Garowe wuxuu ka sheegay in dadka ka soo horjeeda doorashada qof iyo cod ay yihiin dad caloosha ka jiran isla markaana ka soo horjeeda horumarka iyo geedi socodka barnaamijka doorashada qofka iyo codka ah oo ay xukuumaddu ay wado. Siciid Dani ayaana siyaasiyiinta uu weerarka afka ah ku qaaday waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo sidoo kale wasiirkiisii hore ee maaliyadda xasan shire abgaal isagoo sheegay in dhammaantood ay ka soo horjeedaan in shacabka Puntland ay iskood isku doortaan maadaama doorashada qof iyo cod haddii la dedejiyo qofka uu xur u noqonayo cidda uu rabo inuu doorto. Siciid Dani ayaana ka hadlay eedda loo jeediyey xisbigiisa talada haya ee ah in barnaamij gaara ay ku hoos qarinayaan doorashooyinka qofka iyo codka ah ee deegaanada Puntland uu ka dedejinayo madaxweyne Siciid Dani. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa waxay xayiraado dhinaca maaliyadda iyo socdaalka ay ku soo rogtay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab. waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in shabakadan al-shabaab ay u qaabilsan tahay soo iibinta hubka, fududeynta dhaqaalaha iyo qorista askarta kooxdaasi ka mid noqonaysa. waaxda maaliyadda ayaa sidoo kale sheegtay in al-shabaab ay maalgeliso dadaaladeeda al-qaacida ee caalamka iyo sidoo kale kooxo kale oo ku xiran al-qaacida. waxaana intaasi ay ku dartay waaxda maaliyadda in al-shabaab sanadkii ay soo xareeyaan dakhli dhan $100 milyan oo ay ka hesho ilo dhaqaale oo kala duwan. shakhsiyaadka ay dowladda Mareykanka ay xayiraadda ay ku soo rogtay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdullaahi Jiir oo ah madaxa al-shabaab ee keenista hubka isagoona kooxda hubka uu keeno gudaha dalka iyo dibadda gaar ahaan dalka burbursan ee Yemen. wuxuu sidoo kale isku xiraa Cabdullaahi Jiir al-shabaab iyo ganacsatada gudaha Soomaaliya wuxuuna u soo aruuriyaa canshuurta ay kooxdaasi soo rogto. sidoo kale Khaliif Cadalle ayaa ka mid ah xubnaha lagu soo rogay xayiraadda wuxuuna al-shabaab u qaabilsan yahay lacagaha laga soo aruuriyo ururada aan dowliga ahayn wuxuuna si toosa ugu waramaa amiirka kooxdaasi Axmed Diiriye. xasan afgooye ayaa ka mid ah xubnaha ay xayiraaddu ay saartay. afgooye ayaana dowladda Mareykanka kol sii horeysay madaxiisa waxay dul dhigtay $5 milyan iyadoo ciddii soo sheegta akhbaarta xasan afgooye la siinayo lacagtaasi. afgooye ayaa waxa uu maamulaa shabakad maaliyadda u qaabilsan aruurinta lacagaha ay al-shabaab ugu yeeraan sakawaadka wuxuuna hore u soo noqday madaxa waaxda maaliyadda ee al-shabaab. dad badan oo falaqeeyaal ayaa isweydiinaya waxa ay ka dhimi karto awoodda dagaalamayaasha al-shabaab maadaama xubnaha ay dowladda Mareykanka
ay ku soo rogtay xayiraadda ayna lahayn bangiyo lacag ugu jirta iyadoona dadka ay arrintani ku sifeeyeen inay qayb ka noqonayso fariimihii ay Mareykanka ay soo saari jirtay oo ay madaxda al-shabaab lacagaha waalida ay duldhigi jirtay. guud ahaan saaxiibayaal waxaan halka ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeena aad kala socoteen Somali Press TV. waxaan mar kale idinka codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkeena in aad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo macluumaadka xiisaha leh aynu halkani soo gelino. mahadsanediin dhammaantiin sina share gareeya.